wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay no waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay xafaayadda konfi baby iyo caanaha konfi laag sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warnamiyaan oo ka amal gorade hamiinki baabuurta makrofanada wiin la kiray oo madaxdana meelo muhiimka inta iska qoytka qudbeesiyo bahaasina leeyr baabuurta gaadasi goormaan ladnaanaye lehdankii lugooyadii nadeysay lixii labaatanka juu saduurad warniyo anigu waxaan garan waayey 26 jun waxa idin daba dhigay ee anagu 26 juna sheegaysaan waan leeleelay Somalilandna xorriyadeeda waxay la soo noqotay 18 May war 18 May aad sheegaysid waa maalinta qashin aruuriska qaatumo war khaatumada seege khaatuma hadda u dhamaatay oo cali khaliif kaleed aan soo gacan gelinay warnimayo June iyo July marka la soo gaaro waxaan soo xasuustaa nin xirxiran oo afka kaliya ka hadlaya oo dhahayo xor baan ahay ku heesay war 26 June maxaa naga galay kooda luliya war rabaa inuu gambiye war waxa la yiri June iyo July waqtigu galinba waa jaade maalmo soo jireenaatiin oo jacayl mudane joogistiina caawana qalbigu way jiranaya war sidaadoo kale dadka qalbiga ka jiran saxaafaddu waa loo diiday caawa kale inay war ka duubaan manacna cadiyaaladna loo saaraya warnimayo hadda goor waxa la yiri islaam baa tiri lugtaanay ninba markuu qaad marka June iyo July mas'uulba maalin waa ka soo qudbeeyay ninba wuxuu qabtayba war Soomaalida waxa la ogaaday inaan weligeed la gumaysan sababtoo ah dadkii la gumaystay ama dadyawgii la gumaystay afka iyo dhaqanka iyo diintaba waa laga bedelay marka Soomaalidu dad lagu soo duulay ahaayeen dad la gumaystay ma ahayn marka hadda waxaan ka baqayaa inay gumaysi u gacan gasho sababtoo ah afkeedii iyo dhaqankeedii iyo diinteediiba dagaal lagu hayaa ayadaana loo adeegsanaya marka waxaan dhihi lahaa hore looma gumaysane hadda yaan la gumayn warnimayo hadda ka hor abwaandoodaan Allah u naxariisto wuxuu yiri muddaday gumaysigu wateen maamulkii dunida margiyaha dad laga soo xiro wada mareegaysan oo laga mulkiyay baa badnaa waxay muhiibeen Soomaalida sadhig miradkii kala macaashay warnimayo June iyo July kuma shaqushaa inta laga deysaan cadaadiyo dhuusamareeb bay ka curatay gudoomiyadiisuna wuxuu dhihi jiray waa ka shidan tahay war cadaadiyo dhuusamareeb kaliya ma ahane hatta balweyn ka shidan tahay wararta nimayo dhuusamareeb shalay ra'iisul wasaare Khayra waa lagu soo dhaweeyay roog yar oo masaajid laga soo qaadana waa loo dhigay war miyay ku tukanayeen war ra'iisul wasaaruhu markuu dhuusamareeb tagay waa gabiyay waxaana uu yiraahdee waxaan joognaa geyiga gobonimada dhulkii geesiyaasha waxaan joognaa halkii ay gabdhaha Soomaaliyeed ku heesi jireen aan isguursanay galmudug igey war ra'iisul Khayra culimada gabar u garawaa miya war warkaan naga dhex gelinine ra'iisul wasaaruhu wuxuu yiri galmudug maamul dhicisa oo loo dhamayn uma dhisayno warnimayo horta cadaada la isugu tagay madax tiro badan oo xildhibaano iyo madaxweyne xaaf ka mid yihiin aan isugu tagay waxayna dhahan doorashadu halkaan bay ka dhacaysaa oday ka mid ahaana waa mahma wuxuu yiri hadda ka hor nin baa wuxuu yiri 100 halaad baan ku siinayaa inay badbaadi markaas buu wuxuu ugu jawaabay adeerow taydii karin kala hayd baan ka maali waayay war galmudug waxa ka socod Khayra ku arag farmaajina kugu fiirsi war sidaas ma ahane cadaado dhusmareeb shaakir xaaf waxaaf macal maxamuud waay baasho warnimayo warkiina waxaan ku soo xasuustay hadda ka hor baa waxa la yiri abeesa waxay cuni jirtay amuurada yar yar ka oo dhan maalintii dambe goodaada afka gashatay hadda goodaada waa ka sun badan tahay oo haday laqadana waa ku dhimanaysaa haday iska tuftana waa ku indhabeelaysaa marka waxaan u malaynayaa macallin maxamuud iyo xertiisu inaysan xaaf ka dambayn war indhaha nabad inoo la u jeedaaye xaaf wuxuu mari doonaa jidkii shariif war xeefadu jidkii shariif maro Axmed Madoobe miyuu ka dambeynaya soo asna mari maayo marka waxa la yiri geelow soco markaad ciin daaqdun baa lagu yaabaa marka waxaan ka baqanayaaba inay Muuse Biixi ay faraha la soo galaan ku gubtaan wararta madaxweyne waare iyo Yuusuf Dabageed booli degmada balweyne ma isku haystaan war waxaad ka hadlaysaan ma ahane madaxweyne Farmaajo waxa uu dhahay dawlad dhexe oo xoog leh baan u baahanahay dawlad isbarbariyaysa ma baahnin warnimayo waxaan la yaabanahay dawladii ayadoon xoog lahayn
bay shacabkii ka cabanayaan oo ay jidadkii ka xirxiratay hadday sii xoogaysato talow muxuu shacabku samaynaya warxaaf hadduu rabo in dawladda la diriro waara dabageeda u maalala'ya war beledweyne wiilkii gabadha webiga kala tallaabay ee markii dambe la yar webigay ku dhimatay waxaa caddaatay in asagu dilay asagoo qoslay oo sheekaynaya ayuuna sheegay inuu asagu dilay wuxuuna yidhi waa jeclaaya agteeda ha laygu duugo waana la toogtay baa la yidhi war gabadha jeceshay lama dile warniyow jacaylkaasi waa li badnaaye war ma haysaana somalilan tv-ga qaranka in laga fiirsado waa laga mamnuucay war aljasiire iyo CNN iyo Ethiopian TV-ba waa laga daawadaaye maxaa TV-ga Hargeysa ku diidaysaa war adeer qoladan jaarka nahay bakooran ka qaadna markan daawano war al-shabaab VOA iyo BBC ninka dhigaysta waxay dhaheen waa murtad war miinooyinka ayagoo xiraya ku qarxay murtadiinay waa aqoonsadeen war anigu waxaan ka baqayaa ahlu sunna inay xaaf u aqoonsato odo weyn oo khawaarij ah warnimayo waxaa la yidhi waayahan xaalay gabay ma tirin nuun iska badaaye waataan raallaydiisa iyo shiinkii maanacaye balan soo rogaal celiya waad igu taqiineene xalaa laygu soo riday maraan seexday gurigiiye abwaanadusa meelahan dhow bay ka helhelayaane afartaa bilowgii hor iyo darartii koobaad dheh roob soo hilaaciya daruur qaba baxdoodii dheh badda mawjadeediiyo dawca qabatay neefkii dheh qarax dhacaya gowdiisii iyo lama iloobaan dheh baabuurkii madaxweynaha hoonka ka isiiyey iyo macal debdemiskoo iskoys jaama soo galay dheh cilmi ugu xabaalnaa jiroon gees ka soo qoday dheh tixda qodobadeedii dhacoonkuugu soo daray dheh afar kale dhammaadkeediiyoon soo gunaanaday dheh intaasaan ku joojinahayaa maantay gabaygiiye xigmad lama qasaarshee warkii ma idin deeqsiiye intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badine maantana matalaad keentay warnimada waxaa la yidhi siyaasado rafacan baa jiroo rogay dalkeenniiye nin waliba siduu raba haddaan laga rakaadsiinnin raxanraad ma daa'iye inuu rabash abuuraaye rugcadaaga hawshiisibuu riiqay kuraygiiye qof waliba ku soo roor intuu reerakaashadaye wax raggii ku lumay baa hablihii raadinahayaane rabbiyowna daba qabo sidii ronadaa garanay war kufsi raggiyaa ku khasaaray laakiin Hargeysa gabdhaha la yidhi ninay kufsadeen maxkamadduna waxay caddaysay been inay taho gabdhaha lagu been abuurtay marka gabdhaha been ha ka sheeganiyo war naga tag qaaligii maxkamadda Hargeysa waa iscasilay sidii loogu keenayo kiisas weeliye war qoladina geeska iskugu timaado macmidka qosolka xun leh mawaalantiin adigu war kii qosolka xumaay isbaaradii walla weyn oo shalay difaacayuu aaday war dadka beenta ka daa dadkii oo dhan cadaaday aadeen been badana kuwa dhuusamareeb aada maxay yihiin war jigjiga waa laga soo laabtay niyo warnimayow dhuusamareeb diyaarad badar sidaa laga sheegay maruna war dadkiinana caadi ma tiidin ordoniyo meesha nagu kala kaxeeya war xishooda khayr allah idin siiye war xabadda nugu ridin